waxaan ka rabnaa madaxweynayaasha iyo ra'iisul wasaaraha iyo intii kale madaxweynaha federaalka kulli dhammaantiin waxaan ka rabnaa laxawgii iyo walaalnimadii iyo dhayalkii iyo qosolkii aan xoolaha ku keenay oo isu bagaanbognay markii la yiri madaxweynayaashii oo dhan meesha isugu imaanaya waxaan malaysanay in maanta Soomaaliya meesha ay ku heshiiyeen mar haddii intaas isu timaado ayadii aan sugaynaa insha Allah hadii la yiraahdo maanta hadii ay heshiis ka soo saari weydaan oo intiinaas isu timaadeen madaxdii Soomaaliyeed adinku aad isu timaadeen hadee waxa muuqeen marka inaanba Soomaaliya heshii karin gaal inay heshiiyo maahan magaciinu waa ku halaabaya Soomaaliyana waa ku halaabaysaa waxaan ka rabnaa in ka codsaynaa inaad maanta Soomaaliya u tanasushaan inaad ka shaqeydaan wanaageedii iyo nabadeedii iyo dawladnimadeedii iyo sharafkeeda inaad ku tala gashaan si gaara iyo dan gaara iyo nin walba mas'uulka markii laga dhigayay qabiilka Soomaaliyada mas'uul looga dhigay waan ilaahayna waa sukin kaana waxaan ka codsaynaa halka aad noo joogtaan maanta waxaan u fafadhinaa habaar iyo duco waaye waa habaar iyo duco xaqiiqo waaye ma qarinayo waa idin ducaynaynaa haddii aad wanaag iyo waxsan ka soo saartaan meeshaas waxaan rajaynaynaa inaad ka soo saari doontaan adinkoo magaciina iyo mas'uuliyadiinana dhowra Soomaaliyana adinkoo dhowra inaad ka soo saari doontaan ayaan rajaynaynaa waxda aan la cabaadno wada oo xumaan dhexdiina ma aan maqal laakiin waan ku sii boorinaynaa wixii aan jecelnahay waayo waxa aan soo gudbinaynaa nabadaan jecelnahay inaad heshiidaan aan jecelnahay annaguna haddii aan nahay reer galmudug waliba waxaan ku talagelaynaa hal sana haddaa joogtaan dadka inaan annaguna ka korayno geela iyo ariga iyo xooluhu sidaas ay u socdaan waxaan xoolaha u soo hurgufaynay waa laxaw iyo walaannimo iyo nabad jecli maanta ha nagu ceebaynina madaxdanadii tihiin dawladdanadii tihiin ama mid federaal ama mid maamul goboleed madaxweynayaasha meel walba Soomaaliya waa laga dhageysana waa la arkaa maanta magaciinu inuu meeshaas ka soo baxo oo heshiidaan wax ku heshiidaan Soomaaliya anfaca ayaan ka rajaynaa ayadaan ka sugaynaa salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ducadii ay hartay dadkan buu duceeyay ilaahay oo rabbiyo waa ku barinay rabbiyo adaa heli kara awoodaada ilaahu adaa ku heli kara ilaahu rabbiyo maanta meeshaas la isugu yimid ilaahu rabbiyo mira iyo guulka keen ilaahu guulka keen ilaahu guulka keen ilaahu mid lagu farxa ka keen ilaahu mid Soomaaliya anfacda ka keen ilaahu madaxweynayaashu midaysa ku ceeboobin ilaahu ka keen ilaahu waa ku barinay rabbiyo ilaahu waa ku barinay nabadii iyo wanaagii aan sugi jirnay maanta noo muuqatee ilaahu rabbiyo noo fududeeyo noo dhali ilaahayow rabbiyo inta isu timid ilaahu rabbiyo Soomaaliya danteeda intii wada ilaahu wax la qabo ilaahu si qaloocan ninkii wax u arkaana ilaahu soo toosi adaa heli kara ilaahu rabbiyo adaa awood leh ilaahu rabbiyo waa ku baryeynaa maanta waxaan u safanahay anoo ama ducada ama hadalka Soomaaliya oo dhan ku hadla dhaqanka maqan ugaasada maqan iyo dadka maqan oo dhan codkoodii waa codkan ku hadla ilaahu rabbiyo waxaan ka baryeynaa ilaahayow rabbiyo maanta birashaas ilaahu nagu ceebayn rabbiyo ilaahu maanta nagu ceebayn ilaahu rabbiyo galmudug ha ku ceebayn ilaahu madaxweynaha galmudug ha ku ceebayn ilaahu madaxweynayaasha kale ha ku ceebayn ilaahu ummadda Soomaaliyeed oo meel kasta ka sugeena ilaahu ha ku ceebayn ilaahu sharaf iyo guul iyo nabad ilaahu ka keen marka hore inaan shirkaas soo dhaweyno ayaan iskugu nimid mar labaad aan u hambaliyayno aad baan ugu faraxsanahay waa guul waxa ah in dadkii Soomaaliya xukumayay dhamaantood ay aqbalaan inay wada hadlaan oo isku yimaadaan Soomaalidu waxay tiraan wada hadalno waa aan heshiino taas marka hore aad baan u soo dhaweynaynaa waan uga hambaliyaynaynaa fikirka saliimka ah oo ay aqbaleen inay isku yimaadaan marka labaad annagu haddii aan nahay odayaalkii dhaqanka waxaan leeyahay hadda dhaqankii galmudug baa jooga laakiin dhaqanka Soomaaliyeed dhammaantii waa matalaynaa waxaan ognahay waxa ay rabaan annagu waxa aan rabnaa waxay tahay qarankii Soomaaliya in la soo celiyo wax kale aan rabna ma jiraan taas anaga rabitaankeenu kaas weeye dhaqanku meel uu joogaba waxaan leenahay walaalaha meesha iskugu yimid oo madaxda ah mas'uuliyadii Soomaaliya iyo masiirkii Soomaaliya ayaa tunka idin fuula
waxaan idinka sugaynaa annagu waxaan ku filannahay inaan idin hambaliyayno idinna ducayno talana idin siino hambaliyadii iyo ducadii waan soo marnay talada idin siinaynaa waxay tahay walaalayaalow maandhooyow masiirkii Soomaaliya ayaa maanta tunka idin fuula maanta waxaan idinka sugaynaa qarankii Soomaaliya inaad soo celisaan waxaan idinka sugaynaa khilaafka danaha ku salaysan inaad xagga iska dhigtaan waxaan idinka sugaynaa danta qaaska inaad ka hormarisaan danta caamka waxaan leenahay walaalayaalow maandhooyow maanta khilaaf xagga iska dhiga khilaaf waxaa ka weyn danaha gaarka waxaa ka weyn danaha Soomaaliyeed waxaan idinka sugaynaa Soomaalinimo midnimo ilaahay idinkiis qarankii Soomaaliyeed soo celisaan inay isu tanasushaan intaasaan idinka sugaynaa waxaan leenahay maanta waxaan u maleynaa ducaa iyo habaar labadaad mid heli doontaan haddii aad wax ku heshiisaan oo adinkoo wax ku heshiiya aad Soomaaliya ka tagtaan Soomaaliya oo dhan baa idin ducaynaysa odayaalka idin ducaynaya ugaashyada idin ducaynaya boqorrada idin ducaynaya culimada idin ducaynaysa ducadaas waad helaysaan waa la hubaa inaad helaysaan qalbiga Soomaaliya sida uu maanta yahay haddii aad tafaraaruq iyo danagaara ku kala tagtaanna oo adinkoo waxba ku heshiin aad tagtaanna waxa taas bedelkeeda waxa imaan kara in ladin habaaro waayo waxaan rabnaa annagu marka aanu nahay dhaqanka galmudug oogaas iyo odayaal dhaqan waxgarad siyaasiyiin leh oo aanu isaga mid nahay maanta shirka caasimadda lagu hayo oo intii maamul goboleed ahayd iyo golihii dhexe dowladdii federaalka ahayd siyaasi ummad ilaahay isugu timid shirkaasu inuu noqdo shir loo aayo oo midho dhala oo lagu najaxo oo khilaafku ka baxo oo u daneeya danta iyo dalka iyo dadka waxaanan annagu aaminsannahay markaanu nahay gobolkan galgaduud caasimadda Dhuusamareeb iyo intii la halmaasha oo aanu danaynaynaa soo dhawaynaynaa wax kasta oo culaysa oo jira in looga gudbo wanaagga is-afgarashada islaamnimada mas-uuliyadda wixii adag oo hadda laysku mari waayo laysaga tanasulo annaguna aan ka ducayno waxaanan ku darayaa intaas in ilaahay arrintaas tii najaxda oo midho dhasha oo lagu guulaysto oo aad iyo aad sidii loo rabay u noqota in ilaahay nooga dhigo madaxda shirka ku jidhana waxaanu leenahay u fadhida dadka qiimeeya ilaahay ka yaaba mas-uuliyaddiina qiimeeya ummadda dhibaatada haysa iyo xilliga la soo maray inta uu cadad leekaa dhibtiisu qiimeeya maanta wax loo caayo wax aan ahayn raalli kama ahin markaan shacabka nahay dadweynaha nahay galmudug nahay Soomaalina waa nala mid inteeda islaama oo wax garanaysaa 6 nin ayaa heshiila 500 oo kun oo qofood gobolka ku nool Soomaaliya ku nool oo heshiis way isdhex marayaan ganacsiga isku marayaan shirkada isku marayaan way soo hambalyeynayaan 6 ninna waxay rabtaa inay isbaareen meel ka dhigtay inay ma heshiin ma yeelayo aynkan war ka baqa ilaahay in abuurtay god 2 mitir aan ka dambeeyo xoolaha iyo gobasha meesha waxa lagu baabiinayo waa in nabad laga helo Soomaaliya gudaheeda nabadda qaata in kaariyo ku dhicin diyaaradu in la dhicin afar faatahan marayna kii diida nabadda in ilaahay la rido diyaaradda oo nagu soo noqdo karaamaan leenahay dad baan nahay muslim baan nahay danta ka daaya qabiilka qabiil ma kala lihin Soomaaliya ka gees waxa la yiri 26 juun liibaanay kooda luuliya israacnay heblaaya israacnay hay isku raaceen waayo waxay isku raaceen Soomaaliya ma ahayn xagay hadda iimaanay kuwa hadda wax sheeg xagay iimaanay hadda ay ugu heshiin haddana ay ugu heshiin moojin yaa loo iimaan ninka loo iimaan la su'aala waa nin meeshiisu ku cishaa sidii rabtidooda abaartii dhacday aanu kala qaxnay adduunka markii naqileyana waa soo wada noqdo Soomaa dadku ismadila markii abaartu jirtay arigu dhoofiya asoo meel geeya asoo riyo meel daaqaya ciidaas waa fiicneed mar alla markii naqdigana way islaynayeen way isdilayeen war ilaahay hay ka fariye ma abaartaas in lagu jiro oo la isku daayo masiina barwaaqo nabad dhalshaan isku rabay
war dawladnimadu waa nabad naqdaay waa waxa la yiri wax uga dara waxa ka jirtay waqooqa saddexda bilood oo horta geela abaaha markii naqul leedana waa qooq furaas la dhaana xaw ka faa'iido naqi war waxaad yeeshaan ilaahay baan ku dhaashay heshiiya war wax garta war waxaad noo sheegeen hadda ruuyihiin 26 jun gobonnimadii la qaatay adkeeya ragaa joogo aan jaamacada ka bixin kowdu loo raacay isu keena oo dadku waxay rabaan iyo tanasul isu sameeya war wax garta ilaahay ka baqa annaguna ay duceyno ilaahay oo maanta aniga mikroofanka li waa hadlaya ninkii nabadda diiday inuu deeradu la dhaco anigu uma duceynayo ma u duceynayo anigu waxaan rabaa in la yiraahdo yaa ka tilshay ragga hal ugu maadiyo waa dhalinyaro waxa xusid madana ninkii ammaan loo waa mudan yahay qoorqoor waa ugu da'yar yahay waana isu keenay kulligood ninkii ka weyn iyo ninka yar waa isu keenay waayay asaga isu keentay war gogasha daryeela asaga qiimeeya ninkii aqliga Soomaaliyeed u yeerto waxa dhahay war waxaad sheegayeen raac dadka hadda waxaad arkay xildhibaanadu dhalinyaro u badan yihiin wasiirada dhalinyaro u badan yihiin odayaasha xal looga tagay waa wixii tali lahayd ma inay wax dhaamaan odayaashu waa in garab taagan yihiin raaca aqliga leen ku doortay iyo cilmiga aad leeyihiin maanta haddaan reer galmudug nahay oo odayaashii dhaqanka aanu nahay wuxuu ku saabsan yahay shirka madaxweynayaasha iyo mas'uuliyiinta kale oo la socota waxaan ka codsanaynaa mas'uuliyiinta madaxweynaha qaranka madaxweynayaasha gobolada waxaan ka codsanaynaa in ay maanta soo saaraan war Soomaalida u ah farxad iyo dan labadaba u ah waa u ducaynaynaa waa raacaynaa waa la shaqaynaynaa waxaan codsanaynaa in ay soo saaraan heshiis Soomaaliya iyo dadkeedaba dan u ah dalka iyo dadka waxaan codsanaynaa ninka xarig feereedka wataa inuu tanaasulo waa u ducaynaynaa inuu tanaasulo inuu Soomaalida u tanaasulo inuu dadkiisa dan yartaa u tanaasulo inuu dalkiisa u tanaasulo waxaan rabnaa haddaanu nahay annagu beelaha ku dhaqan galmudug ama magaalo madaxda dhuusamareeb waxaan rabnaa in la heshiiyo waxaan faraynaa madaxdu inay heshiiyaan waxaan rabnaa farxad inaanu annaguna ku noolaano idinkuna aad nooga tagtaan waa idiin ducaynaynaa waxaan rabnaa inaad maanta heshiis Soomaaliya dan u ah aad soo saartaan inaad isu tanaasushaan inaad isu samirtaan inaad dadkiina u naxdaan sidaasaan idinka rabnaa waxaan hadalkayga ku soo gabagabeynayaa madaxweynaha galmudug qoorqoor ha noolaado waxa weeye madaxweynihii ugu yaraa oo yacni doorashadiisuna ugu yarayd da'na ugu yar intaasna isu keenay madaxda sharafta leh ee Soomaaliyeed ee ku shirsan madaxda galmudug ee dhuusamareeb si aan uga qabyatirno doorka nooga aadan u qaadano maamuuska iyo madasha kulanka dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada Soomaaliya waxaan ku hanweynahay in aan shirkan ka soo baxaan go'aano ummadda Soomaaliyeed ku noolaato horseedo midnimo qaran iyo guul iyo heshiis taariikhda Soomaaliya galo sidaas daraadeed waxaan soo jeedinaynaa ugu horeyn waxaan bogaadinaynaa soo dhaweynaynaa shirka madaxda Soomaaliyeed dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada uga furmay magaalo madaxda galmudug ee dhuusamareeb waa soo dhaweyn waxaan madaxda Soomaaliyeed uga mahad celinaynaa ajiibidda iyo aqbalaadda ay aqbaleen shirkan inay ka soo qayb galaan madasha gogasha loo asteeyay hanaqaadka heshiiska hoggaanka qaranka waxaan si xushmad leh uga codsanaynaa madaxda Soomaaliyeed madasha ku sugan inay u turaan shacabka Soomaaliyeed ee ku tabaalaysan dunida daafaheeda dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxaan si gaar ah ugu dhiirinaynaa madaxda in ay ku dadaalaan oo la yimaadaan waxaan si gaar ah ugu dhiirinaynaa madaxda in ay ku dadaalaan oo la yimaadaan isu tanaasul hufan
oo aan xeelaysi keenin midnimada lagu hanto heshiis waaro iyo badbaado qaran 5 waxaan kula dardaarmaynaa madaxda in ay ka fogaadaan gogoshaan wax gaaraysi iyo khilaaf abuuri kala fogaansho sababo dalka iyo dagaal sokeeye ugu dambeyn waxaan madaxda u soo jeedinaynaa inay badbaadiyaan taariikhna ku yeeshaan qarannimada Soomaaliyeed maanta oo habheeb ku sugan waxaan rajaynaynaa si farxad iyo sacab leh in aan madaxda ku soo dhaweyno kuna sagootino ugu dambeyn markii meeshan guul Soomaaliyeed ay keenan insha Allah taala aad u mahadsantihiin